muslimka shakhsiyadda oo islaamka ka doonayo islaamku yuu u baahan yahay shakhsiyadda u baahan yahay inuu noqdo qofka muslimka ah maxaa laga doonayaa inuu soo u yiraahdo qof muslim ayaan ahay dulmiga bayna zawjaadka dhacay oo ah dulmi khatar ah khaasatan ragga waxaad arkaysaa in dulmi aad u far badan ay ku dhacaan ayagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala aan kaga cabsanin xaasaskooda haddii aad hooyada iyo aabbahaad aad caasi aad u ahayd ilmahaaga caasi noqonayaan walidaalika culimmadu waxay yidhaahaan waxyaabaha adduunyada kusoo degdega ciqaabta oo adduunyada kusoo degdegta waxaa ugu horeeya ka mid ah waalidiinta caasinimadeeda acuudu billahi min ashaytaan rajiim bismi illaahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin subxaanaka laa cilma lana ila ma callamtana inaka anta alcaliimu alxakiim رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم الحمد لله إلهي مهدي سادة مركل قصة الله بني أنا وناك إسفارين محمد إسكريبين إلهي سبحانه وتعالى كبري لما أنت إلهي إنه نقدر يكوك وانتفاعا وحي شيء إن كرون شيء إن إلهي سبحانه وتعالى أنا يكبر يعني أيجي لفت ودني كما قالان إن حنسعد السلسلة حلقات أنك جهد ليني صفات كمنافقين تا هدف كأن كلنا يا إخواني wuxuu yahay maxaa yeelay dad muslimiin aan nahay taariikhda markasta way soo celisaa qofka muslimka ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu amray in markasta uu ka digtoonaado waxyaabaha u keeni kara aakhiradiis xalaynaya maxaa yeelay adduunya aakhira way kala fara badan yihiin waalaakhiratu khayrun wa abqaa ilahay soo sheegay saas daraaddeed ayaa waxaan hore u soo sheegnay in qur-aanka iyo axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam inta badan ay nagu digayeen dadka munaafiqiinta inaan ka mid naqana maxaa yeele ninka munaafiqa waa laba wajiila weye wejina dadka ayuu wax ku tusayaa oo qancinaya keliya oo raali garaynaya laakiin tii ilaah dhan ma fiirinayo marka wuxuu rabaa keliya dadka inuu khayaano oo waan sheegnay sifaat aan kasoo sheegnay oo ilaahay subxaanahu yukhaadicuuna allaha waladiina aamanuu ilaahina way khayaanayaan dadkana way khayaanayaan maxaa yeele yaquuluun bialsinati maa laysa fii quluubihim calaamad badan aan kasoo sheegnay afkooda waxay ka qowlayaan afka qalbiga kama jiro sifaatkaas haddaa soomaali nahay aad bay noogu badan tahay oo marka sababtaan u sheegayna waxay tahay maxaa yeele soomaaliya waxaa laga raacay kursiga wada rabaan wuxuu raadinaya keliya kursigaas uu ku ilaalsan lahaa ama ku kori lahaa midna wuxuu raadinaya suu ku kori lahaa midna wuxuu raadinaya suu kusii haysan lahaa weligiis uu kusii joogi lahaa kursigana waa maal adduunya waa mulki adduunya waa zuulaya saas daraaddeed maxatanimada ilaaha bixiyo oo asaga ayaa tu'ti lmulka man tashaa ah laakiin waxay tahay qisi nadaamay leedahay shalaay leedahay marka soomaaliya anaga haddaan nahay anaga dhan waxaa mustaqbalkeeni iyo diinteeni aan u dayacnay iyo waddankeena xataa hadda faraha ugu baxaya arkaysid inay tahay inaan isku haysano waxyaaba adduunye oo ah hebelaa fiican iyo hebelaa ka dhulka ayaa xukunka yaqaan iyo xukunka aan ka ridno waxaas ayaa waxaad moodaa inay naga badato taas waxay keenaysaa marka qofka hadduu yool yeesho oo yoolkiisu adduunye u noqdo nifaaqnimo kama baxayo munaafiqnimo kama baxayo macnaha wuxuu sawarinaya keliya soo ku gaari lahaa hadafka marka beenta oo ilaahay xaaraantimiye waa xalaalsanaya walidaalika mu'miniintu waa khayaanaya afkiisa wuxuu ka sheegaya oo islama laha oo ilaahay qur-aanka wuxuu ku safiy wuxuu leeyahy wa min annaasi dadku xaajir uu leeyahay man yucjibka qowluhu fi lxayaati dunya qowlkiisa markuu hadlaayo tviyada markuu ka hadlaayo ninkan waxaad leedahay waddanka waa lagu aamini karaa ninkan waxaad leedahay waa nin daacad ah laakiin ilaahay subxana wa tacala wuxuu leeyahay wayushhidu allaha calaa ma fii qalbihi wahuwa aladu lkhisaam bal fiiri sifaat cajiib wey sifaatkaas dad munaafiqiina kusoo degtay laakiin nifaaq waa soconaya ilaa iyo aakhiro soconaya marka hadafkeenna wuxuu waa inuu ahaato waa inaan thawaabid lahaana ikhwaani thawaabid naga dhexaysa oo waddankaas markii laga hadlayo wax kasta oo isku khilaafi karnaa laakiin waddanka markay timaado thawaabidaa jirta thawaabidaas maxay tahay waa waxa isbedelayna wey waddankeena xuduudihiisa inaan ilaalsano isma bedelayso kuma xirna madaxweyne hadda yimid iyo mid baxayo iyo mid soo karaya kuma xirna walidaalika labadaba laga doonayo kan joogana lagama rabo inuu ka dhigo waddanka inuu dadka ka xigo oo yidhaha dadka kale waxay yihiin ma laha oo anagii le aan wax qaban kara uu yidhaha kuwa weli aan korin raadinayana inay ka dhiganin ninkan waddankii dayacaya inay dhihin waxaa leeyahay thawaabit la iskuma khilaafi karo waxaa weeye masalan masale kenya hadda laga hadlaya waxaa waaye in hal weji loogu yimaada la doonaya bisarfi nadar kursiga la joogo walidaalika annaga eed waxaan saarnaa keliya dadka mucaaradka war dadka xukunka ku jira naftigooda eed waxbay ka qaadayaan maxaa yeelay hadduu dadka iska eriyo oo dadku intuu soo dhaweysala iska eriyo bir hadhowna uu ku eedayo dadka ma soconayso kan mucaaradkana inuu maanta dhan uu fiiriyo hadafka ninkan ceebtiis u sheegi lahayd
حكم كان وهرتقي لهاد كليه إنه ثوابت وقبح معها. ولذلك من نفاق إيمانها مرك مرجفون في المدينة جو ضد بدن إله القرآن كحقوق المامي والنفاق إنه بطل. ولذلك نك سياسي النفاق لما مرنا ما عاد داعي نك سياسي وعوي مركو السياسة سوقله والدارية هذا ما كان دارتس ماشي كأد. إلهي سبحانه وتعالى صفات كمنافقين تا وحقوق المامي يحلفون بالله لكم ليرضوكم ساسلوا يقانا نك منافق حتى شعبك على هليا نيو على هليا marka atira waxa deena u ka qaba isi wallahi biri ila madafis wala war wallahi magac ilaahay ku luween qolada baarlamaanka noo joogtana baarlamaanka dhaarta waa ka soo musxaf oo saarna wuxuu leeyahay war dhaartaas kitaabkaas ku dheernaysid waa marqaati walidalika an ilaahay suuratu munaafiqiin wuxuu leeyahay waxay ilaahay weeshadoon waxay ku dhaarnaa uu leeyahay annaka rasuulullaahi ina tahay ilaahay nabi yacna wallahi ina nabi tahay wana qanaana kitaab umarayn wallahi dhaayan marka wallahi anaga naga soo horeyso sifaadkaas iska ilaaliyo Soomaaliya madax hadaad tihiin ama atiin shacab atiin ama mucaarad waxa irtii mucaarad shacabku kamid yahay laftigiisa atiin iska ilaaliyo ina dhaartaan beenta atiraan maanta waxba la taswiiraya taswiirka lagu yaqaan dawladda been baa laga sheegay waxay sameeyna waxa leeyahay in la ceebeeyo kala raba qolada mucaaradka dada TV u fadhiyo oo la dawladda taageersiin nin kasto afka kala qaado waa ku soo haadayaan ورساس ما أها تزوير كلا إلى المحايا شهادة الزروي قيامها الكي تجي نك أسكت دفاعي هذه ورقاسة ما أنت ومركات فريسد ورجوت كمركي اللي قلنا إلهي سبحانه وتعالى محله ارتجي اللي مرقاتهم ونقنه اللي أسجى مقال وردتك ما ضحى إنه جهرين آوي على لو ضوء موسى قالوا يريو نك ما ضحى ما كنت أنت موسى قالوا سيدوها ولي نعم نسأل السلامة والعافية إذن وحاصلنا وحكمتها هي قرآنك وحيابون وقديمها وحكمته إلهي سبحانه وتعالى صفات كوض وحكمته وإلهي سبحانه يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله عادات كوض وحكمته وكلها dadka si oo dhalaal ay u tusaan laakiin gaal markuu hoos joogo gaalada hoos kala jira gaalku wuxuu leeyahay war anaga nahay anaga xukunka hayna anaga xuquuq qabanayno dadka waa la wareerinaya ma ogo gaalka oo la shiraayo iyo tolkiisu marmar la shiraya wuxuu leeyahay tolkeen anaga xukunka qabsanayno kan kale wuxuu leeyahay tolkeen xukunka anaga ka ridayno wuxuu leeyahay ilaahay yastakhfuna min an-naas wala yastakhfuna min Allah wuxuu leeyahay ilaahay ma ka gabanayaan dadka ka gabanayaan dadka kaliya ay ka gabanayaan وردت كان أكجنبنيسد محوك وتركر إلهي سبحانه وتعالى إذ يبيتون ما لا يرضى من الله إلهي وحرر لك إن هبين كاس يكون شرايا أما قالوا له صفات كمنافقين إلهي سبحانه وتعالى وحكم ذا وحوى ولاية وحوها ينبا ومدة ومش قيام أما معارض هذا أما دولتها هذا قال ذا يهوسك الحرير dadku wuxuu sheegay wuxuu kulli Mareykanka ay wato ma Ethiopia ay wadato ma Kenya wadato meelahaas ku soo shira waxaas ku soo taga waa sifaadka munaafiqiin la ilaahay quraanka wuxuu leeyahay ya ayuha alladina aamanu ilaahay ku rumeeyo wuxuu leeyahay la tattakhidul yahuuda wan nasara awliya war dadka gaalada yahuud iyo nasara awliya ka dhigin walidalik waa ka digi markaas uu leeyahay dadka munaafiqiinta waxa lagu gartaa hadii saas la yiraaho warniyo wadankan ha gadanin قال إيه هوس أكله شيء سوي كودان دت وحكوا دت كأكوا وربري جيري أجريسو وعندما يساي واسعون يساي وكرفين قد ككرجة أجريسا إلهي إن واحد دت كقرصة وأكسوني هي يا بين وشيء يسوى وذلك إله حلو يخادعون الله إلهي قيانا والذين آمنوا دتك مؤمنين وقيانا تيفيقوا إيمانيا هذا الله براق وكهذا يا هذا الله فيعن وكهذا يا وحربة وحنو الدمي كليه أما وحربة إنه مرسي جو ورشعب كان ورشعب كويس إلهية ومدحضو إسرائيلي وحن كديجا نفتي ولا له ولا لا نهاي عد أن ضلنا ماله ولا جيا بقى إنه قفك ويلا قفك مركي وحلاقة شيء ونك وحسكوك وهو ريا ينك إيمان له وحباك صد لاعي وحلي ورمي وحبال شيء جيا محيي لي لعل الله لعلكم أنا وحرمنا كلية معذرة إلهي قيامها إن لو مشي إن مدح ذاني معارض كأني شعب جين لو مشي إن معذرة إلهي كدهنا أم لعلهم يتقون إن إلهي كيابتان الرجال لأنه وعد وسؤال على ستان أو أد نفاقا يوحنا بنت اللي سكوا شيء جايو هبل كراي اللي سكدايو تاسع أصله ولذلك وعليه مركي ليرة ورجال هذا يوحنا كهرة منافقين تحليهن فترى الذين في قلوبهم مرض إلهي وحكوت المامي ذلك منافقين تصفات ليس يحل مرض كجر عذروي عذر كاس نفاق هذا أسك جارين والدنيا اللي كو صور أنت سيد هبل وقت قال لهت سيد رير هبل وقت قال لهت سيد أديك لقو أمان لها سيد أديك اللي أديك ولذلك أناني إنه قفك النقض وحيري فرعون وحيري وما أريكم إلا ما أرى أنا ربكم الأعلى أمركم يري وحيري وما وراني قاعد صحن أنا ساعة كده وشاورهم في الأمر النبي صمد لو سوحينه عليه وشاورهم ودنك ومتن أنا كده حيوان ودتك أنك سوق قبلي ودنك يا قطر كجر سما ومتن أنك سوق قبلي محل قبط هذا محايا ما ومذونه وحصل لك هلا يا محايا بني قال بر إلى لنا ودنك ساس دراد وحول ليه هنا ليه ركوا وأرجنا والله بالله تد بدنا وجرب كيمد
oo Soomaali shaqo ka raadsaday shaqo way dawladdu hadda waa iska shaqada dadka raadsaday wuxuu ku leeyahay niyo Mareykanka hadda uu cunuqabateen uu soo saara mayka uu soo raa war Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku xirnow ogow dawladna lama ridi karo markuu shacabkeeda uu taageersan yahay war adiga laga rabaa shacabay dawladaada inaa ku duubnaatid oo aad adiga kugu tashato laakiin shacab ninka la ku tashanayo shacabkiisa ugu celiyo waa aragna caalam العربي islaamiga waa aragna waxa dhacay madaxda maxaa marka ninka rabo loo ridaa waxay ku tiirsan dad kale laakiin markuu ninka Ilaahay iyo shacbigiisa ku tiirsado waxa ninka wax ka qaadama hadoo dhintana sharaf ku dhintay geeri ku dhintay oo maxay waa dhimana maalin ay nafta ka bixi doontaa saas daraadeed ayaa dadka munaafiqiinta waxa leeyahay waladiina fi qulubina fatara alladina fi qulubihim marad Ilaahay quraanka wuxuu ka hadlay dadka munaafiqiinta maxay yeelay aayad suurad baqara markuu ka hadlay wuxuu leeyahay fi qulubihim marad markuu ka hadlay oo yiri yukhadi'una Allah walladina aamanu wama yakhda'una illa anfusuhum naftooda qayaanayaan dadka inay qayaanayaan umaleeyaan Ilaahay laakiin wuxuu iiga asqayaana maxay yeelay geeriya ka dambeeyso bir xisaaba u taal wixii qarinayaan Ilaahay qayaam wuxuu leeyahay yawma tubla saraa'ir war dadka hadda gooni u shiraayo oo sharaay waxa leeyahay laba qof markay meel ku kooto najwa ay ku sameeyay ay ku shiraan Ilaahay wuu thaalithum Ilaahay u dhaxeeyaa ogaada marida maalinka qiyaamada wuxuu leeyahay yawma tubla saraa'ir sirta aqrinaysa dhan wajiga laga soo saaraya maalinka waa la keenay waxa qarinaysa mala banaanka la dhigaa dadka dhan ogaan war ninkan saam u ahay hatta ninka sheekha ah oo cilmiga akhrina haduu ahaa inuu magac ku yeesho oo la sheeg haduu rabo sheekha laftigiisa ma siyaasiyiinta kaliya tubla saraa'ir waxa leeyahay inta facaltaha li yuqaal in lagu amaana ratay dadka gurbaanay ku tumeen waa ku amaaneen hebel ay ku yiraahdeen geesi ay ku yiraahdeen maxaa ka dambeeyay aakhiradaada ilaalso marka tan waa ta ka hadleen صدرت إلهي صفات سورة بقرة أو 17 كبركوا كان لا وحليه في قلوبهم مرض وحليه وحلوي قانا منافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض تتكس منافقين لقى الله وانك ولا وجيله لقى الله هذا ودن كساء ودام والمعارضة وساء ودان والدولة وساء ودان وهذا فريستا وهذا تشدد ذات راهد وحلي إنما نحن مصلحون ورانا جا وحاجين عتك وحاجي كرت ماله أنا جا وحاجي كرم إلى حلي ألا إنهم المفسدون وحلي كواسا مفسدين آياتك الإله سبحانه وتعالى وحليه حرثي نصري كديلايان markay fasaad ka dhacaan maxay mufsidin u yihiin maxay sanadka ay haastaan Ilaahay maahane sanadkooda waa gaal way Ethiopia ay wadato Imaaraad ay wadato iyo Kenya ay wadato iyo Qatar ay wadato maanta meeshaas ku kuuriyay walidaalika Soomaali ceebka kama ahad Ilaahay wuxuu leeyahay aayad markuu hadlay munaafiqiinta fatara alladina fi qulubihim marad kuwaas oo al-baqara ku soo sheegay oo maradka nifaaqa ku dhacay oo xukunka ay adduunyo u jeedo aakhira aan ka fikireynin Ilaahay wuxuu leeyahay waxa asiibto marada ku dhaco cudur weey cudurkaasna hadii iska gaarin maxay qalbigu waa jirada qalbigu markuu jirado khatar cudur badan ku dhaca qalbiga fi qulubihim marad ilaa wuxuu leeyahay hadii maradka iska daaweyna fadaaduhum lahum maradkaas ay ku dhamaan sidii asoo wiri oo adduun raadinayo guriga tacbatay meeqa mala guri 100,000 hal malina dawladda ka dhacday iska soo qaad halkaas mali ilaahay inuu ku cafinayo oo qabta intaas guriga dhisatay meeqa sana ku noolaan kartaa waa dhimanaysa ilmaha dhaxal u qaybsanayo laakiin adiga cadaabkeeda ku soo min ayna laka wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam tasaalu qadama hatta yus'ala an maalihi al warsana maal kasta aad keento war dadkan shaqada doonanayo oo wadankan u khidmeynaynin oo aan walaaltinimada aan ka shaqeynaynin oo kursi le u ordayo waxaan leenahay maalka aad heshay dhan waa lagu weydiinaa qiyaamaha min ayna laka siraadka wallahi ma gudbiso nabiga calayhi salaatu halkee ku bixisay halkee ka keentay idan ani maal aan aruursado iyo sumcad waxay ii taraysa malaha waxa ii fiican oo khayr igu jira inaan ummadan daacad u ahaado inaan ummadan aakhira ugu dhawaado aan iraha aakhira ugu dhawaanaya ilaahay ay shaqaale iga dhigay xukunkan waa lagu imtixaanay kan laga dajinay oo dhihin waa ridaha waanba maslaxada ummadda uu fiiriyo intaas waa inta la dhahay walidaalika laakiin munaafiq waxa soo muujid asaga wuxuu ku leeyahay hebel ay wataanay walidaalika ilaahay quraanka waa ka shafay wuxuu leeyahay fatara alladina fi qulubihim marad kuwa qalbiga nifaaqa kaga dhacay hadaad aragtay wuxuu ku leeyahay yusaari'una fiihim ay fi wilayatihim wilayada oo gaalada ay u kala tartamayaan انت تك هذه امارات تك ما قدر تك كان كلها عالم اسلامي maxaa haasto عالم اسلامي maxaa haasto mutadayika ninka muslimka waxa leeyahay waa irhaab leeyahay Soomaa marka diinta cabsi ma laha cabsida taal waxay tahay ilaahay cabsi leh hadaa ilaahay ka cabsi dadkana waa ka cabsanayaan hadaa laakiin ay ka cabsatid ilaahay cabsi iyo qof maanta dhan wuxuu leeyahay walidaalika wuxuu leeyahay kuwaas wuxuu ku raadinayaa waxaan yaa diid ma hebel diiday Mareykanka diiday iyo safiirka dad hadda wuxuu ku leeyahay safiirka Ingiriiska la kulan iyo ka Norway la kulan wax weyn oo la tahay خلاص wuxuu leeyahay sanada haystaadi ilaahay quraanka ka shaf wuxuu leeyahay ilaahay farfil aayad arag wuxuu leeyahay waxay leeyahay yusaari'una fiihim wuxuu leeyahay yaquluuna naqsha an tusibana daa'ir waxa ka baqayna dadkana xuku wadanka waa la xukuma hal meel laga xukuma biri in aan laga qaado marka wadankiisana wuxuu iibinaa marka
dad uu isdhahay waxaa ka helaysaa taasaa keeni karta marka inay khiyaanada ku dhaca marka munaafiqiinta sifaadkooda ilaahi subxana watacaala wuxuu leeyahay waxaa ka mid alam tara ila aladiina tawalluu qowman qadiba allah ilah wuxuu leeyahy qoom waa yuhuud waa ilah kuwa caroodo ayay xiriir hoos la leeyihiin ummaddan waa ka qarinayaan xiriir kale wataan wuxuu leeyahy ma hum minkum walaa minhum wayaxlifuuna cala alkadibi beerna waa ku dhaaranaya masalada dhaarta sifaadka munaafiqiinta lagu yaqaan wey yaxlifuuna billahi maanta dhan dhaar wallahi wallahi xataa dadka ganacsada ninka deenta ka qabtid shacbiga dhaarta iska ilaaliya ikhwaani hadda Soomaaliya hadaan anaga waxnahaas dhaartaasaan gubaysan nin kastoo wasiir laga dhigi waa la soo dhaariyey wixii lagu dhaariyin ma samaynayo kii baarlamaanka ka dhig kitaab uu ilaahay soo maray war dadka hadday ku ogeen ilaahay waa ku ogeen inaad dhaarata maalinkaas cala alaqal war waxaa ku dhaarata samey nacam nasal allah salaamatu alcaafiya qadka telefoonka halow 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 qofkaas waa ka go-aan filaya maay halow sheekh suuri waa ku maqlaa way maqlaysaa si fiican ku maqlaa alxamdulilah asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu sheekhow beryihii soomaaliya burburtay ee la kala yaacayey ayaan alaabo yari qolo iga raacday imika 28 sannadood baa ka dambaysay alaabtii qol Jabuuti baan u diray magaalada la yidhaa waa la soo iibiyey qayb yar oo aan nagu soo hagaagtay ayaan isiri dadkii qaybtii waxay ka heli karaan u samee dabadeedna wadankii waktigii ugu dambaysay ma garanayo dadkii wax ka nool ma garanayo imika halkan la dhanbaan kula joogaa maxaan ka yeelaa ma shirkada ahayd waxba isku darsateen kolley wax yaro ii dhiibteen bay ahayd oo aan badnayn oo anigan kula hadlaya ii dhiibteen misal aniguna qof sii dhiibay marka wixii waa iibisay qoladii aan usii dhiibay Jabuuti joogtayba kolley wixii may wada dhammaanin laakiin wax yar bay ii soo direen oo ay iyaguna dee kolley wax ku yeelanayaan macnaha waxaan rabaa su-aashina kaleer ka dhigtay ma lacag waxbaa lagu dhiibtay oo ku ganacsateen waxa ka faa'iideen mase wixii dadka lahaayeen maadaama aan garanayn waa sahlan tahay haddii ammaano qof kuu dhiibtay ammaanadii aan cidda garanaynin waa inaad raadisaa ilaa muddo hadda dhowr sano 20 sano ka soo wareegtay haddii asaas ku gara weyda marka u sadaqay sadaqa jaariya masaajid iyo ceel iyo wax la qoray ugu dar waa su-aashaan doonayo wixii u soo baxa inaan si aan idhaahdo 28 sannadood baa ka dambaysay mayka haddaad waysi u sadaqay gacantaada ka bixiyo geerida ku imaan adoo haya ammaanada haye insha allah bismillaahi kariim waad mahadsantahay asalaamu calaykum dhinaca kale halow halow halo haye waa ku maqlaa sheekhaan walaal asaa kula hadlaya telefonkayga lahaa tv iska daa haye sheekhaan waxa waaye assalaamu calaykum horta wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu sheekha waxaan ku weydiin lahaa daawaan qaataa marka taanaqlagaan daawo qaataa cishaha marka ma sugi karin isku dari karaa maqrib iyo cishaha isku dari kartaa isku dar 4 rakac cishaa 3 maqrib iyo 4 cishaa tuko 4 iraa 3 cishaha macnaha maqribka markaa tukatid 4 cishaa soo gaabin cishaa 4tiisa tuko waayahay insha allah dhinaca kale halow 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 qofkaas waa ka go-aan filaya asagane halo halo sheekh Usmaan aniga sheekh Umar see waaye sheekh Umar alxamdulilah maxaa ku warsana adiga aayadii munaafiqiinta keenaysa qof oo munaafiqiis shaqadiis warsanaayo ma arkaayo waxay goona la saamaaye aniga irta qadana saan waaye maxaa natiijadan oo munaafiq muhiim waa inaa loo hadlo Soomaali waxaas ma qasaamiya munaafiq inaa loo hadlo waajib waaye baarak allah fiik aniga irta qadana aniga saan waaye beeskaas سؤال معها صح واي شيء ما شيخنا يا أخي جزاك الله خير أنا ما تاي مهم منافقين ده ولا بوها مسافة مسلمين تقبل خارقوا منافق واي إلهي خير هكذا إلهي نسوه حق لها ضمان سؤال كاتل له إنا له جوابه إن شاء الله منافق سامة شيخ محاوي هي لو منافق سانا سمينه أدينا آيات كينس حديثة كينس لكن أنا سامواي أنا هيدا أركي سون سامواي كسؤال ما شيخ وارنتا إن شاء الله منافق إلهي إنك قفت إن شاء الله إله سوهنوني إنعك هلو هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أبو بكر شاكتاي كان سواء عند الكيسيرن واقرت
sheekh waxaan rabaa inaad tala yar isiiso waxaan rabaa inaan maamul goboleedyada yacni tusaale ahaan maamul goboleedyada rabaa inaan madax ka noqdo madaxweyne ka noqdo xil qabto xilkaasina dowladda federaalka ah ama dowladda federaalka kumeel gaarka aan dhaho federaal ilaa hadda shacab wuxuu codeeyay ma jirto marka waxaan rabaa dowladda in aan micnaha magaca qabiil aan shacabkayga aniga aan kasoo jeedo aan u adeegsado si aan u dhaho duulaan annaga nagu yihiin dowladda si aan u dhaho qabiilkeena loo socdaa shacabkana ay intooda badan maadaama ay qabiilkayga ahaan ay ugu jecel yihiin ay ugu ixtiraamayaan aan garanaynin dowladnimada sharafta ee leedahay ama qiimaha ee leedahay maadaama ay garanaynin si aan uga faa'iidaysto oo aniga kursigaan u fadhiisto hantina u helo wax dhib ma igaga imaanayo micnaha dowladnimadiina dadka maadaama garanaynin aniga bes shaksi ii jeedaan kursiga haddaa iska fadhiyana aysan faa'iido ku helin caafimaad ayna helin waxbarasho ayna helin يعني أنا وأنا كفايدة أن دار يجوري يهانتي وسمس دبعت ما يجي من هكذا ما هو أخي عقلي كاجا جوابي هذا الدين ومان عقلا قبل شرعا إن أدتك بين وشيكتيد وقبيل أكوك عسيد وأد دولنا مذ كود مسيد وحسوا دنبي وحكمتها ونفاق هذا النفاق وحلير يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم أفكوا حكنا هيا يقولبت وجر لا بيكلته صح لكن الشعب كيقول راح الشيخ هذا شعبك نفتيجي وإن أنا وحك الدقينا وأنين صوص ما والشعب كان وأنينا كاس واحد منافق نمذ سمينا وأنينا هوش هنا وإله أنا أقبله دعي أنا وحيتها إن وشينا ذاتك نبكي نفاق ولا يا سومالي ذا والناس كسهل سدي وحتى اللي وحن وسياسه نين نفاق سو سميه أي ذاتك مركول الشراء وحكولي وحن وسياسه سياسة محاوى بين وإن لسكون شيء جميع ونفاق لا سميه ومشكلة وي مركادو عليه مرك مقع وسياسة ذا بقرض ذا كفهم السومالي مركا waxay u baahan tahay duruusta aan wadnay kamid tahay dad badan qadka ku jira khayr Allah ku siiyo dhinaca kale halo qofkaas waa ka go'an fil asagana dhinaca kale wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah laba su'aal israacsan sheekh xajka rabna aado marka waxaa igu adkaanaysa inaan macnaha miiqaadka aan kusoo xirto sacuudi sacuudi gudihiisa markaan taga inaan miiqaadka tago macnaha maraba waxaa raba markaan aan baxayo wadanka aan ka tagay hadda american jooga america camal inaan ka xirto xaj transit meel wadanka mu ihid miya maya waa ka xiran kartaa american ka baxayo straight jidda ka tagaa jidda ka tagaa sooma خلاص مركا اللي صوتوا الله لو دواad waxay kugu fiican tahay ihraamka hadaad xiratid muharramaat ihraam galaysa cijadaada macun kartid tinta ma gooy kartid waxaan qeysaa nin maxbuus oo dhikriga ilaahay ay keenay marka u dhawaatid miiqaadka u dhawaatid inta kale si xor u ahaatid marka miiqaadka u dhawaatid uu yiraahdo ama diyaarada inay sheegaysa ama adiga ba aska qiyaasto 4 saac iyo 3 saac markay ka dhiman tahay labayk allahumma hajja markaas niyeyso insha Allah marka xajkii oo anina waxaan ku aadanahay hada xajka sideed dhiman ilaa xajka aan xalaalka noqonayo may cimra sameeyay mutamatti'a ta marka tagtid marka hore cumraan yeesanaysaa xaj oo mutamatti'a kadib marka tagtid waa cimraysanaysaa madaxa xiiraysaa wax kasta xorey ku noqon hadda maalinkii sideed la baxayo ayaad hotelka ka ixraamanaysaa haddana xajka xiranay waa gar tan kale waxaa rabay sheekh inta ku magacaado meel oo inta waqti hore baagtoo ka sheegaysaan dhegeysanay maalinta caraf oo xadiisa ka hadlaysa oo dhimaysay يعني ducada waxa ugu teerbadan qofka tawxiid laa ilaaha illa allah kala marka haddaan ducadana iska dhaafo bixis aan laazim macnaa ka waran waxa qalbiga ku jirna ilaahay ogsoon yahay taas li laazim waxdan iska dhaaf ducada jazakallahu khayr barakallahu fiik dhinaca kale halo الو الو ها السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن أسأل سؤال؟ تفضلي. الشيخ؟ نعم. الحين أقدر أصلي صلاة العشاء قبل لا يأذن؟ نعم لأن الوقت الآن وقت نحن في الصيف يعني علامة دخول العشاء لا يظهر إلا ساعة واحدة ولذلك حتى المساجد الذين يصلون ساعة يعني 11 لا يصلون بوقته ولذلك من أراد عنده عمل أو من أراد أن يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في هذه الأوقات جائز يعني
يعني يجوز اني اصلي قبل الصلاه قبل لا يأذن يعني حتى؟ نعم، لان حتى الناس اللي يصلون 11 قلت لك بالليل في المساجد أيوة. ما دخل وقت العشاء، هم يصلون قبل الاذان، قبل الدخول. يعني هذا في لندن ولا في كل مكان؟ لا لا، هذا في لندن واوروبا، يعني في شرق اوروبا ايضا. هذا علامة الشفق الذي. طيب ايش فين دليل؟ طيب هذا دليل واضح، يعني انت كيف تصلي صلاة المغرب؟ من اخبرك ان صلاة المغرب دخلت؟ هو يعني يجي انه أذن مغرب نشوف في قناة الاسلام. من اخبرها المؤذن انها دخلت الان في لندن انها مغرب؟ بقناة الاسلام نشوف. كيف قناة الاسلام كيف عرف ان دخل وقت المغرب؟ هذا هو يقول حان اذان في لندن يعني. كيف عرف؟ وقلت له كيف عرف؟ والله ما اعرف. اسال الدليل بعدين نفس الدليل حتجي. ايوه عشان كذا انا قاعده اسال، يعني افكر ابغى اصلي عشان نعم. عندنا شغل، بعدين اقول يمكن لا ما يجوز. لا لا جائز في هذه الاوقات جائز، يعني انا شاف علامة الدخول العشاء اختفت الان. يعني المغرب ممكن انسان يصلي الساعة 11 بالليل، ممكن يصلي المغرب الان، لان المغرب ما ترك حتى الان. اوكي نعم. ان شاء الله شكرا. بارك الله فيك. لنعقل شرق اوروبا ايضا. هلو. هذا علامة انا waxaan weydiinayay waa ku maqlaa tv-ga iska gaabi, tv-ga iska gaabi waa ku maqlaa akhi. haye assalaamu calaykum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. sheekh waxaan doonayay hal su'aala inaan weydiiyo sheekha. نعم. sheekh waxaan biilba waxaan u diraa hooyaday iyo walaaladay. waa garta. kabacdi waxaan ka jaray inamadii aan walaalaha ahayn. kabacdi hooyaday waxay tiri haddii aanad ayagana siinin waana niman xoog leh, waxay u tiri haddaan ayagana siinaynin anigana haysoo dirina hayso. maasha allah. haye kabacdi maxaad sameeyaa sheekh? nimankuna waa niman xoog leh, waa niman aan shaqaysanayn. u dir hooyada teeda yeel u dir tawadan u dir. ilaahay ugu dhawaanaysaa, amarka hooyadaa ku bixisay, baariyaa tahay hooyada, xataa iyada ugu dhiib caleeda waa ka adaa kuusoo diraa siidhi. su-aal kale xaaskaygaa ku weydiinaysa sheekh adigoo raalliya, waxay tihi meel baan ka shaqeeyaa, waxaan ku arkay hudheel weeye. haye halka la seexdo markii waa hudheel, waxay kaga tagaan khamri lagu cabo, quraarada khamri lagu cabay. ha marka qashinkaan ku cabaa, waxbaan iskaga qabtaa, galoofitaan iskaga qaadaa, qashinkaan ku tuuraaday tiri. marka shaqadaas xaaraan ba mise xaraam? may waa banaan tahay, waa wixii la tuuraay imaadat al-adha can tariiq iyo wixii oo saas loo kala tuura dhib ma laha. khayr allah ku siiyo sheekh. baarak allah fiik. dhinaca kale halow. هلو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا انتظار في الشيخ يعني. نعم تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال ربي إنه كويديو وبصراحة. هيه. waxaan ku weydi lahaa yani haddii waalidkayga uu khaldan yahay oo yani musuq maasuq iyo been iyo laqdaba ka dhaqmayo ani ma toosi karaa miskal sidiisaan ku dhaqaa? maya waa u naseexaynay, naseexa ma toosis ma kule naseexa ku leedahay. hadday diidaan waalidnimadu xiriirkeeda kuma jaraysid, waa xiriirin. xiriirka ma u jaraay, laakiin macnaa wixii uu xaq ah oo runta ah waa inaan u sheegaa. dariiqa oo lagu naseexaya jirta akhi, nin kasta dariiq uu leeyahay, ninka xataa ninka daaciga ah dadka qaarkoodna si baa lagu nasteexeeya, qaarna si lagu dadka waalidka dariiqa waxa lagu nasteexeeya leedahay. haddii aad dariiqadaas ka gudubtid hadhow wixii ka soo gaaro oo ilaa waalid waa xaq ay leeyihiin, xuquuqdooda inay ku qabataa laga yaabaa. laakiin wixii runta hadduu khaldan yahay khaladkaan iska dhaaf, waa khaladkaan ku socotid yani. waxa ku fiican weli waxa ku fiican qof oo qaraabe oo walaal ina usoo sheegtay tiri qofka hooyo waxaas laga waani taas dhaaf adiin abari. haddii ka maqleenin qof war ka maqleenin. والله فيري أذيك ما عليك إلا إن بلاغ أجارسيس المبين أي وحكى هسكم مشغول لك والدك عاسى كنا قنتاس إسكيل عليه بس ما يعاس ما أح يعني خلد ديال كيس لي ربع إنك كدادي يعني ما فيري قلداتك عاسنما هلك أصحابك كسو موليس معي إلى قرآن كحلي ولا تقول لهم أف أرجع أف ألقى إلى لي إسكدافع إنه واحد تلا مركا حيرة سمي أدي وحكوسو قارن الماء يبرك أركيسا waxaad dhooysid ilmaaga wax ku dhahayaan waalidkii qalad uu leeyahay waa saxina nafsa shay qatarteeda marka adiga taada u baq yaruurtaada u baq maxay yeelay baru abaakum tabaru abnaakum xadiiskaas waa nabiga marka aabaha iyo hooyada baar naqad ilmaaga baar ku naqad hadii aan naqawaysid au aragtid qaladkood arkaysid bari adiga kugu soo qaloocanaysa nasala salaamatu alaafi ilaahay khayr ku siiyo akhi ilaahay shukran ya sheekh shukran fila su'aashaas ugu dambeysay waqtiga gabagaba waxadaan qalday hal su'aal kala ka dambeysay halo ha
وكنت ولا ها تفضل ويدي سؤال يا أخي أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ waxaan ku weydiinayaa maxay gabadh baa maxay waxay rabtaa hooyadeed iyo aabaheed way dhinteen. waa gartay. aabaheed meherkii bay ku lahayd hooyadeed. marka meherkii hadii maxay ahayd iyaa la siinayaa meherkii. aabaha dhintay mas hooyada waa dhintay. labadiiba way dhinteen. hooyada maalkeeda la qaybinay hooyada waxba ka tagtay maal ma ka tagtay. maya hooyada maalka ma tagin laakiin maharkaas maalka hooyada waa la qaybsanaa dadkana la qaybsanayo. maya meherkii bay rabtaa inay ka bixiso aabaheed. yaa siinaysaa marka. yaa la siinaa ilmaha dhaxalka la siinaa ilmaha dhaxalka leh ayaga le laga qaybsanayo wixii dhaxal leh hooyada wixii dhaxal leh hooyada wixii dhaxal leh qaadanaa marka meherka ma intii berigii ay isku meheriyeen baa la bixinaa mise hadda qiimo cusub lagu bixinaa. ma intii berigi joog wixii ziyaada ninka fadal u bixina gaar walakin wixii maadaama shilin Soomaali uu la isticmaalo oo shilinka yaal shilinka la bixina. intii berigii baa la bixinaa. intii la bixinaa. caruurtii meherka hadday yidhaahdaan aabbahayo waan ka saamaxnay may ka saamaxmaysaa. haddii hooyadee nacam waa ka saamaxaysa hadday yidhaha anaga maalka anaga askale hooyadeena xaqeedu ahaa anagana waa ka saamaxdayna waa ka saamaxmaysaa maalka markii naqlu milkiya dhacdo milkiyada hooyada baa kasoo wareegtay. هي نعم هي جزاك الله خير شيخ. نعم سؤال ساشد ugu dambeysay hadii aan wax qalda naftii sheedaanay ka ahaatay hadaan saxna tawfiiq ilaahay subhanaka allah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. muslimka shakhsiyada oo islaamka ka doonayo islaamku uu u baahan yahay shakhsiyada uu baahan yahay inuu noqdo qofka muslimka ah maxaa laga doonayaa inuu soo yiraahdo qof muslim ayaan ahay aan dulmiga bayna zawjaadka dhacay oo ah dulmi khatar ah خاصة رجع واحد أركيسا إن الظلم آد وفرق بدن يكون عن أيجو إلهي سبحانه وتعالى عن كجعب سنين حاسس كود هذه آد هو يدا يوابها آد عاسي آد وهيد المها عاسي نقنايا ولذلك علماء وحيرهان وحيابها الدنيا كسر دق عقابته والدنيا كسر دق وحكى الرأي أكمل والدين تعاسني ماذا